بسم الله الرحمن الرحيم. ugu horeyn ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaanu mahadnaqaynaa xafiiska imtixaanaadka qaranka oo hogaaminayo gudoomiye Daawud oo runtii shaqo fara badan oo qurux badan qabtay dadaalka faraha badan xafiiska qaranku sameeyay runtii qaranka oo dhan bay sumcad u tahay waxaad la socotaan sanadkan imtixaanadii jaarka wadamada jaarka oo dhan waxaa dhacay wadamada jaarka waxaa ka dhacay waad la socoteen runtii xafiiska imtixaanaadka shaqaalihiisu iyagoo runtii aan mushaar fara badanna qaadanin haddana hufnaanta ay sameeyeen iyo dadaalka ay sameeyeen iyo xilkasnimada ay sameeyeen waxaa idin caddaynayaa waxaa ku jira ardayda imtixaanka gelaysa mas-uuliyiin wasaaradda ka mid a carruurtoodii baa ku jira mas-uuliyiin xafiiska imtixaanaadka ka mid a ku jira ninna ma oga saaka halkaan fadhina xataa ardaygiisu wuxuu keenay ma oga iminka marka la qaybiyo natiijada ayin baa la ogaanayaa taasu markaa waxay sheegaysaa imtixaanadeena runtii inay yihiin imtixaano markaa very secure waktiga imtixaanka la soo saaray oo runtii la jaan qaadaya waktigii dugsiga la furayay iyada lafteedu waa guul wasaaraddu runtii ku tallaabsatay wasiirka wasaaraddu mudane cismaan hogaaminayo waana dhiirigelin ka timi xagga madaxweynaha runtii maalintii madaxweynuhu furay imtixaanka uu furay mas-uuliyad ka badan tii hore wasaaradda saarnaan jirtay baa runtii fushay taasaa keentay marka xafiiska imtixaanaadku inay habeen iyo maalin bay shaqeeyeen waxaan jecel halkan fariin aan uga dirno dhammaan maamulayaasha iyo dugsiyada mas-uuliyiinta dugsiyada dowladda iyo mas-uuliyiinta dugsiyada gaarka ah sanadkan arday kastoo la qorayo imtixaanka iskuulka la qorayaa waa inuu shahaadada haystaa markaa shahaadada hadduu fasalka sideedaas qorayo waa inuu shahaadada fasalka koowaad secondariga ardayga la qorayaa waa inuu xafiiska wasaaradda xafiiska imtixaanaadka uu shahaado ka haystaa waan la soconaa in arday fara badan la diiwaan geliyey laakiin ardayaan shahaado haysanin ma fadhiisan doono classka talabaad waxa weeyaan nidaamkii hore waxbaa laga bedelay nidaamkeena horeynu ku noqonay guddoomiyaha waxbarashada gobolka ayaa isna ogolaansha laga soo qaadanaya waayo waxaan u baahanaya ardaydeena iskuulka gelaysa inaanu hubinaynaya ardayda loo baahnaana yihiin marka ardayaan ogolaansho ka haysanin guddoonka xafiiska gobolka ma fadhiisan doono isaguna hadduu xataa shahaadada haysto waa inuu gobolka warqad ka soo qaataa arrintaasna waa arrin muhiim aad la socotaan aan doonno ardayda baastay waxaan ugu bashaareynaa jaamacaduna waa la mid weyn jaamacaduhu ardayaasna shahaadada dugsiga sare seenin jaamacadda ma fadhiisan karayo taana waad la soconaysaan ardayda gudubtay runtii waa dadaal ay muujiyeen anugu markii imtixaanka la qaadayna waa soo wada maray gobollada si kalsooni leh bay horta imtixaanka ardayda u galeen laakiin arday kasta dee wixii helay buu dee iyu goostay marka dhowr bilood baan wacyigelinta wadnay xafiiska imtixaanaadka waday oo dadaala maanta ardayda kolley kelmadda way dhacday anu waan ka yaro cudur daaranaya guddoomiye ardaydaas waxay gaari waayeen heerkii looga baahnaa waxbarashada waxay fursad u haystaan markaas sanadka dambe intay waxbarashada ku noqdaan in sanadka dambe ardayda la fadhiistaan welibana wasaaraddu waa caawin doontaa sanadka waxaa soo kordhay adi ku bushaareynaa scholarshipkii waddanka Ethiopia oo 500 arday ah insha Allah tacaala maanta markay xafiiska imtixaanaad ku dhawaaqo waxaa lagu qaybin doonaa scholarshipka ama deeqda waxbarashada sida ardaydu u kala sarreyso oo welibana gobolaysan iyadoo gobol kasta xaqiisa la siinayo sida ardaydu u kala sarreyso haddii awal madmadu iyo wax jireen maanta waxaa lagu kala sarreynayaa marka arday kasta natiijadu keenay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa marka xafiiska imtixaanaadka mar labaad ardayda dhacday ama ardayda gaari weyday natiijadii waxaan leeyahay niyad jabina dadaal fara badan baa lidinka baahan yahay natiijada annaga lasoo saaray maanta lasoo saaray ardayga qura waxba ma tarayso laakiin annaga wasaaradahaana qiimeyn bay noo tahay dib baan u fadhiisan doonaa macallimiinteeda ayaanu qiimeyn doonaa mas-uuliyiinta wasaaraddaanu qiimeyn doonaa annagaas qiimeynaynaa waxaanu ku dhawaaqi doonaa markaas sanad dugsiyeedkan cusub warbixintan tilmaamahayna siisaanu ka duuli doonaa waxaanu ugu bushaareynaa waalidka jamhuuriyadda Soomaaliya oo dhan in dugsiyada dowladda sanadkan dardargelin lagu sameeyey isla markaana tayadoodu ay ka sarreyn doonto sidii hore hadday dhan kasta tahay aad iyo aad baa mahadsantihiin